مسؤوليinta gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ah ee u ciiday oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta xisbiga ee magaalada Burco ayaa ka hadlay eedeymo uu u jeediyay maayirka magaalada Burco xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ciiday mas'uuliyiintani ayaa ku tilmaamay hadalka maayir Muraad mid nasiib darro ah oo aan looga fadhiyin maayirka waa sida ay hadalka u yiraahdeen waxaanay sheegeen mas'uuliyiintani in maayirku shaqadii uu bulshada uga mas'uulka ahaa uu ku fashilmay waana kuwan iyagoo arrimahan iyo kuwa kale ka hadlaya maxamedow wax laga Soomaalidu ninkay ariga kala quusato ay geela u dirsataa mahmadaas oo mahma xaqiiqa waayo adigoo oo degmadaadii Burco aad maayirka ka ahayd aynu ognahay say tahay in muddo 7 sano baad xilka haysay todobadaas roobkii daaba xanuunba magaalada ka dhacay xanuunkaasna wuxuu ahaa nadaafad darro iyo fayad dhowr la'aan waxa laaliyo wixii magaalada bulaacada ah ee laga qaadana ayagana halkan baa lagu daadiyaa markuu roobku doo daadka soo qaada magaaladu moos ma leh waad ogtahay habeen qura mooskaas iyadoo awda la maarag ayagoo wixii bas dhex wata ayuu magaalada daadku keenaa maalin kasta aroos cusub ku galaysa waxa weeye si aad xoolo aad leedahay oo khaas ah iyo bakhaar adiga khaas oo ku furan ayaad xoolihii qaranka saad u tageelaysa waa mas'uulka kaliya ee inta uu ka tagay dadkii meel isku geeyintu degmadii ka tagay oo labaguun iskaga aroostay oo ummadii mas'uuliyiintii iyo dadkii shacabka ay kala meesha isugu kulmiyay ee u hogaansami waayay gudidii COVID-19 awaamirtii ka soo baxay wasaaradda caafimaadka horta mas'uuliyad darradaas ka muuqata oo maayirka fashilan aan umadiisana waxba u qabanin ee inuu wax qabtay iska daayay dadkii iyo xisbiyadii qaranka shirkadaha ku tilmaamay oo mas'uulka nooca u dhaqmaya hadalka uu Faysal yidhine malaha dadku waana u fiirsanine waa hadal wada jira adaana cadeeyay inaad adigu xisbiyada qaranka inaad adigu jartay hadeerna aad jari doonto Faysal ma waxaan inta ahayn buu sheegay aad adiguba sheegtay wax la wadaada walf wax male iyo waxbu leeyahay labadaba laga maqlay ka guban arinta waad qabtaa waxaan u leenahay horta hadallada ha loo fiirsado adiguna baashow maanta waxaad ka gubataa meesha ma yeelaan waxaan ku leenahay sida aad sheegatay hadii aad tahay dulqaad baa lagaaga baahan yahay dhaleecay labada xusbi oo yiri waxay u dhaqmayaan sidii shirkadaha gudoomiyaana waxaan u arnay labadan niman shahawshoodii haya oo dawladda wixii dhaliil ay saaran ka sheega oo nagulba shaqadiisa waa haya hadalka mas'uuliyiintan ayaa ku soo beegmaya kadib markii maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad warbaahinta ka sheegay in gudoomiyaha xisbiga uu ciidulaan ku yahay qaranimada Soomaaliland iyo wada jirka bulshada waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco.